maalin wanaagsan daawadayaal waxaan ku rajaynayaa inaad caafimaad qab muuqaalkan ku daawanayso waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo xogo iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadihii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamo turki ah oo la wareegay amniga goobta ay ka socoto xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari cabdulqaadir firdhiye oo toos uga bilaabatay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya iyo cabdulqaadir firdhiye oo goobta si heer sare ah loogu soo dhoweeyey qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya garaad jaamac garaad cali oo diiday sii deynta maxaabiista somalilan ee ku xiran laasacaanood iyo garaadka oo ku gacan sayray dalab culus oo kaga yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud haddaba dalabkaasi muxuu yahay waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi la xidhiidha qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya somalilan oo ku dhowaad 10,000 oo askari ku soo bandhigtay duleedka magaalada og dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi ka soconaya iyo somalilan oo mar kale ku hanjabtay in ay toos u weerari doonto magaalada laasacaanood oo xilliganba ay ka socoto xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari cabdulqaadir firdhiye waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyada culus oo aagga og ay ka bilaabeen xubno ka tirsan maamulka somalilan iyo taliyaha ciidanka somalilan ninka lagu magacaabo nimcaan gaaxnuug oo hanjabaadii ugu cuslayd mar kale soo diray qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxaa qayb ka noqonaya ciidanka maamulka waqooyi bari oo difaacyo culus ka xirtay bannaanka magaalada iyo dhaqdhaqaaqyada magaalada laasacaanood oo la hakiyey cir iyo dhul oo xilligan laga difaacaya magaalada laasacaanood waxaan kula wadaagi doonaa diyaaradaha magaalada dul heehaabaya ciidanka maamulka waqooyi bari ee xiray dhammaan wadooyinka soo gala magaalada laasacaanood iyo amniga oo laga dhigay mid aan horey loo arag qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe de boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaa wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waa hagaag daawadayaal qaybaha ugu horeeya wararkeenna ayaan ku bilaabaynaaye saaxiibayaal soo dhowaada wargelin muhiima ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaala oo xanuunsan in lagaaga soo cimreeyo bisha rajab oo ka mid a bilaha xurmadda leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga soo cimraynayaa waalidkaaga waxaana fursaddan kaaga faa'iidaynaysaa shirkadda taqwa oo kuu samaysay qiimo dhimis ballaaran waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer nagala soo xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda shirkadda xajka iyo cimrada ee taqwa xaj an cumra ku dooro alla ka cabsi ammaano iyo adeeg hufan ciidamo turki ah oo dowladda federaalka soomaaliya ay ka dejisay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa la wareegay amniga goobta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari oo si toos ah uga bilaabatay xarunta maamulka waqooyi bari ee magaalada laasacaanood madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la tilmaamay in amnigiisa lagu wareejiyey ciidamo turki ah oo wata hubka noocyadiisa kala duwan iyo qalabka loogu talagalay in lagu difaaco qaraxyada iyo wax walba oo amniga liddi ku ah kaasi oo xilligan markaa la geeyey magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegay goobta uu ku sugan yahay ee ah meesha ay ka socoto munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari in xitaa la xiray dhammaan hawada iyo cirka iyo dhulka intaba iyadoo diyaarado dagaal ay dul heehaabayaan goobta munaasabadda caleemasaarka ay ka soconayso halkaasi oo laga waardiyeynayo amniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sida macluumaadka aanu ku helayno taliyaha ciidanka turkisom safiirka ee dalka turkiga soomaaliya u fadhiya ayaa labaduba ka soo muuqday gudaha magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo aad loo adkeeyey goobta munaasabadda ay ka dhacayso madaxweynaha maamulka waqooyi bari cabdulqaadir firdhiye ayaa gudaha u galay goobta caleemasaarka iyadoo dhaqdhaqaaqyaduna ay yihiin kuwa markaasi aad u culus isla markaana laga dareemayo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool maanta magaalada laasacaanood aad ayay u kala xiran tahay waqooyi bari waxay u noqonaysaa maalin taariikhi ah oo ka duwan maalmihii hore cabdulqaadir firdhiye muddo ayuu sugayey
in madaxda qaranka iskugu tagaan magaalada Laascaanood ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor taliyaha hay'adda nabad sugidda isirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale xubno badan oo iskugu jira saraakiil ciidan iyo sidoo kale madax dalkan horay u soo hogaamisay oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa fadhiga goobta lagu caleemo saarayo madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari xilligan ku sugan waxaana la sheegay in amniga aad loo adkeeyay madaxdu hadallo kala duwan ayay ka jeedisay gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gaar ahaan goobta ay ka soconayso munaasabada caleemo saarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari waxaana la filayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud goobta uu ka hadlo sidoo kalena uu uga dhawaaqo arinta la xiriirta dagaalka ka dhanka ah maamulka Somaliland iyo sidoo kale in gobolka Awdal uu noqon doono gobolka madax banaan Somaliland inteeda kale sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu goobta uu ku sugan yahay markii la siiyo khudbadda uu ka soo hadal qaadi doona arinta la xiriirta shirka iskugu imaanayaan xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ee markaasi maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe magaalada Laascaanood maanta lama qiyaasi karo xaaladeeda waxaana muuqanaysa in goobta ay ku sugan yihiin ciidanka ee markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay goob marka lagu meegaaray dhinaca markaasi goobta ay ka soconayso xafladda ciidamo aad u fara badan nooca koofiya casta loo yaqaano ee ilaalada gaarka ah u ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in hoolka gudihiisa ay sugayaan amniga sidoo kale ciidamo Turki ah ayaa kor ka ilaalinaya kuwaasi oo diyaarado wata magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lama qiyaasi karo xaalka magaalada Laascaanood iyo goobta caleemo saarka uu ka dhacayo iyadoo ay ka soo dhex muuqanayaan xubno markaasi ka tirsan maamulka Waqooyi Bari oo ay qayb ka yihiin madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Fahimo Qoojo oo qayb ka ahayd dadkii halganka adag u soo galay gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool in magaaladu ay noqoto magaalo ka caagan ee markaasi maamulka Somaliland iyo dhaqdhaqaaqyadii cuslaa ee dhinaca militariga ah magaaladaasi ay ka wadeen goobta waxaa khudbado kala duwan ka jeedin doona ama ka jeediyaba qaarkood madaxda ee dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyadoo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay noqon doonaan labada qof ee ugu dambaysa ee khudbada ka jeedin doona magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood maanta lama qiyaasi karo ujeedooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi ka muuqanaya magaalada iyadoo xaaladda magaaladuna ay tahay mid markaasi dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa xilligan ay ka soconayaan wixii ku soo kordho wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo uu raali ka noqdo waa hagaag markana garaad jaamac garaad cali ayaa diiday siideynta maxaabiista Somaliland ee ku xiran magaalada Laascaanood iyadoo garaadka dalab culus uu ugu gacan sayray oo u soo diray madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud garaad jaamac garaad cali ayaa laga dalbaday in uu la kulmo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo madaxweynaha uu ku sugan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale garaadku waxa uu ka biyadiiday siideynta maxaabiis uu ku jiro ninka lagu magacaabo Faysal Cabdi Bootaan kaasi oo ku xiran magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arintan waxa ay noqotay mid hadal hayntii ugu ballaarneed dhalisay iyadoo doodo culus ee markaasi ay ka taagan yihiin arinta la xiriirta siideynta maxaabiistan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dalbaday garaadka ayaa la sheegay in loogu baaqay in uu yimaado xarunta maamulka Waqooyi Bari sidoo kalena uu ka qayb gala caleemo saarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari lana kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud garaad jaamac garaad cali iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidii magaalada Laascaanood ay markaa u tageen madaxda qaranka isma aysan arkin waxaana la tilmaamay in garaadku wali uu ka biyadiidan yahay in uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud garaad jaamac garaad cali dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay xubnaha xilligan ka soo horjeeda ee aad u khilaafsan laakiin waxa la diyaarinayaa kulan xasaasi ah oo la tilmaamay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta uusan ka soo tagin magaalada Laascaanood ay ku wada kulmi doonaan isaga iyo sidoo kale garaadka guud ee beelweynta dhulbahante garaad jaamac garaad cali kaasi oo doonaya xilligan in markaasi uu qayb ka noqdo xubnaha markaasi la doonayo in lagala tashto siideynta maxaabiista ku xiran magaalada Laascaanood arintaasi oo doodo culus markaasi ay ka yimaadeen dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliyana ay doonayso in markaasi ooda laga qaado maxaabiistan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan waxa uu markaasi geed dheer iyo geed gaabanba u korayaa in maamulka Waqooyi Bari uu noqdo maamul markaasi heli kara sanad walba oo u baahan yahay sidoo kalena hoos imaanaya dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxaana maamulka Somaliland xilligan
muuqanaysa in markaa uu helayo waa maamulka waqooyi bari in uu helayo xuquuqaadka ay leeyihiin maamul goboleedyada dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya qaybta ka ah laakiin ilaa iminka waxay dad badan su'aalo iska weydiinayaan garaad jaamac garaad cali sababta uu u diiday in uu la kulmo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la sheegay in wali la xalinin khilaafkii labada dhinac u dhaxeeyay iyo sidoo kale arinta la xiriirta ka qaybgalka markaasi caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari garaadku waxa uu aad uga carooday kadib markii garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaadda kale ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh محمود وكل هذا اللي أرنت اللي حريرته سيدين تبحبيسته أرنتاسي الله تلمامي إن جراتك عرح وجن وكموجيي إسلام كان أو قاضي تلابع علوس إن أن لسيدين كرين محبيستاسي سيدو كلنا حلجن أيسن معقول أهين مملكة وقوية برنا أيسن أقبلي كرين ما دام محبيستن أيهين كومر كاسي دولة الدحية فدرال كصوماليا أيسن وح شقاء كل هين مملكة وقوية بريء شعب كالكاسي كنا قلنا أي كجو أنجاريان وحكوسو كرنا ورنا وركني وربحنا ده نصوص عدا أيان kugu soo gudbin doonaa hadii Allah ugu dalo uraale ka noqdo markana Somaliland ayaa ku dhawaad 10,000 oo askari waxa ay ku diyaarisay xerada la yiraahdo og halkaasi oo saacadii la soo dhaafay tababar loogu soo xiray goobta tababarka loogu soo xiray waxa ka soo dhex muuqanayay taliyaha ciidanka maamulka Somaliland iyo sidoo kale xubno ka soo jeeda xildhibaanada maamulka Somaliland ee ku sugnaa xerada la yiraahdo og dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaa ayaa ka soconaya goobta ku dhawaad 100 iyo jarjarka kiiloomitir u jirta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo culus ay ka wadaan ciidanka maamulka Somaliland taliyaha ciidanka Somaliland waxa uu sheegay in ay toos u weerari doonaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kalena aysan markaasi aqbali doonin nin diyaarad ku yimid oo si dhuumasho ah ku soo galay magaalada Laascaanood oo ula jeedo madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu ku sii sugnaado gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Somaliland marka laga soo tago hanjabaadaha culus oo ay direyso ma jirto ilaa iyo hadda wax tilaabo ah oo u qaaday maamulkaasi oo ku aadan arinta la xiriirta ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay keentay qaybo kamid ah gobolka Sool dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan soconaya iyo sidoo kale xubnaha markaasi ee doonaya in marka dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaa ay ka fuliyaan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ayaa waxa markaasi magaalada Laascaanood xilligan ay ka wadaa in arinta la xiriirta dhinaca caleemasaarka marka laga soo tago Somaliland in ay sheegeen in ay qaadi doonaan tallaabooyin culus oo dhinaca markaasi militariga ah ma jirto wax ka dhaqan galay arintaasi Somaliland dhowr mar ayay ku hanjabtay in ay qaadi doonaan weeraro culus laakiin taliyada ciidanka militariga Somaliland ninka lagu magacaabo Nimcaan Gaxnuug iyo sidoo kale xubno ka tirsan xildhibaanada maamulka Somaliland ayaa ku sugan xerada la yiraahdo og hadda oo aan kula hadlayna waxa ka soconaya kulamo xasaasi ah oo markaasi looga tashanayo xaalka guud ee magaalada Laascaanood iyo qaabka xilligan ay ku wajihi karaan ka maamul ahaan arintaasi oo dad badan ay su'aalo ka keeneen macluumaadka iyo wararka la xaqiijiyay ee la helayo waxa ay tilmaamayaan in 10,000 ee askari ee tababarka loogu soo xiray duleedka xerada la yiraahdo og ay yihiin kuwa xilligan loo diyaarinayo in ay weeraraan magaalada Laascaanood Nimcaan Gaxnuug waxa uu sheegay in ay la wareegi doonaan magaalada Laascaanood ama hatago madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama yuusan tagin magaalada Laascaanoodna ay tahay magaalo kamid ah maamulka Somaliland gobolada ee markaasi maamulka Somalilandna aan la aqbali doonin in la kala jaro Cabdiraxmaan Cirro oo dhawaan khudbad ka jeediyay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland waxa uu sheegay in arinta socota hadda ay tahay tii ay ku aasmi lahayd dowladnimada Soomaaliya isla markaasina aan la aqbali doonin in maamulka uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay ka taliyaan qaybo kamid ah maamulka Somaliland arintaasi oo xilligan muujinaysa in dowladda dhexe federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Somaliland ay si kala fogaanayaan xaaladdu waxay u muuqataa inay si cakirmayso marba marka ka dambaysa dhaqdhaqaaqyaduna waxa ay yihiin kuwa markaasi si cuslaanaya marka loo eego xaaladda siyaasadeed ee xilligan taagan iyo sidoo kale dagaalada laga cabsi qabi karo in ay ka dhacaan qaybo kamid ah gobolka Sool waxa lagu diyaarinayaa ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan militariga dowladda dhexe federaalka Soomaaliya waxaana qaybta markaasi 23aad ee laga dhigi doonaa xarunta ee markaasi loogu talagalay in ay noqoto gooja cadde halkaasi oo la sheegay in ay tagi doonaan madaxda dowladda dhexe federaalka Soomaaliya waxaana muuqanaysa xilligan in maamulka Somaliland iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari isku dhac dhinaca militariga ah oo ka dhaxdhici doono iyadoo sida aan hore idin kula wadaagaba ee maamulka waqooyi bari ay isku diyaarinayaan
weerar toos ah oo ay ku qaadaan maamulka Somaliland ciidamadooda ee ku sugan xerada oog halkaasi oo la doonayo in si degdeg ah markaa loogala wareego ciidanka maamulka Somaliland bilweynta dhulbahante ayaa xilligan danaynaysa in ay noqdaan maamul buuxa oo ka arriminaya gobolada Sool Sanaag iyo sidoo kale gobolka Cayn oo hadda qaybo kamid ah ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka Somaliland dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaana xilligan ay ka soconayaan macluumaadka iyo wararka la xaqiijiyay ee la helayo ayaa waxa ay tibaaxayaan in xilligan markaasi ciidanka maamulka waqooyi bari dhamaantood heegan la geliyay sidoo kalena la doonayo in ay ka hortagaan weerarada kaga iman kara dhinaca maamulka Somaliland wixii ku soo kordho oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo waraale ka noqdo markana ciidankii maamulka waqooyi bari ayaa difaac culus waxa ay ka xirteen duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaalada waxa lagu soo rogay bandow cir iyo dhul ah inta ay soconayso xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda waxa xilligan ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga danab ciidanka ee maamulka waqooyi bari ciidanka BSF ta waxaana la soo sheegayaa in magaalada Laascaanood aysan jirin cid ka bixi karta iyo cid soo gali karta intaba sidoo kale waxa la xanibay diyaaradihii duulimaadka ku tagi jiray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo dhaqdhaqaaqyada magaaladaasi ka soconaya ay yihiin kuwa markaasi aad u adag marka loo eego xaaladda xilligan taagan iyo dhaqdhaqaaqyada markaasi sii kordhaya ee ka jira magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararka iyo macluumaadka la helayo waxay tilmaamayaan in magaalada duleedkeeda ama markaasi magaalada dhinaca hawada ay dul haabayaan diyaarado military oo ay leedahay dawladda Turkiga sida diyaaradaha Bayraktar iyo sidoo kale diyaaradaha kale ee loogu talagalay in ay markaasi qayb ka noqdaan ee sugitaanka amniga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xogta iyo macluumaadka la xaqiijiyay ee la helayo ayaa waxa ay tibaaxaysaa in xilligan xaaladdu ay tahay mid ka sii daraysa marba marka ka dambaysa marka loo eego macluumaadka xilligan taagan waxaana diyaaradahan dagaalka ee xilligan markaasi dul heehabaya magaaladu ay yihiin diyaarada loogu talagalay in ay markaasi waardiyeeyaan magaalada sidoo kalena laga ilaaliyo in diyaarado si qaldan ay u soo galaan hawada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo cir iyo dhul magaalada Laascaanoodna maanta ay u kala xiran tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye oo si toos ah uga soconaysa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu kamid yahay wasiirka wasaaradda wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo madaxana furan oo si weyn u weeraray ee markaasi maamulka Somaliland sheegayna in dad Somaliland ka soo jeeda ee markaasi ay maamulka waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya maamulka Somaliland qaarkoodna ay raafeen qaarkoodna ay xasuuqeen bal ila daawo wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac Somaliland annaga dagaal hadda aan ku qaadayno oo gaara ma jiro Somaliland iyada hadda isla diriraysa oo maaragtay Israa'iil keensatay oo dhibaato iyada gacanteeda ku raadsanaysa jirta deegaankan wuxuu kamid ahaan jiray Somaliland iyada shacabka deegaankan jooga la diriray xabad ku riday dad ku laayay dad Soomaaliyeed oo maaragta deegaanada koonfur galbeed ka soo jeeda halkan ka qaxiyay anaga arrin aan ognahay maahan laakiin qaranku wuxuu u baahan yahay dekada aad u waaweyn dawladda Soomaaliyeed waad la socotaan waxay haysataa xeebta ugu dheer ee Afrika haysataa dekada waaweyn baan u baahanahay waan gobolka kula tartanno qof walba oo naga caawinaya inaan dekad dhisanana waa soo dhaweynaynaa ma jirtaa qorshe dekada la asqoray qorshe hadda annaga aan gacanta ku hayno ka wasaarad ahaan ma jiro dowladda Puntland oo midnimada Soomaaliya ee qayb ka ah dowladda federaalka ee midnimada ogol waxay u arkaan in waxa ka shaqeynaysan ay tahay wax midnimadii ka dhan oo ciidankeeda fariisanaysan maya arrinkaas sax ma ahan annaga dowladda Soomaaliyeed midnimada ummadda Soomaaliyeed ay ka shaqeysaa maamul walba oo deegaankan joogo oo maaragta ama koonfur galbeed ha noqdo ama Jubbaland ha noqdo ama Puntland ha noqdo dowladda Soomaaliyeed midna ma ogola in la dhibaato gaar ah la gaarsiiyo waxayna maaragta siyaasadii dawladda waaye laakiin ciidamo gaar ciidamo gaar oo iyada leedahay oo anaga hadda aan soo kaxaysan ma jirto ciidamada dawladda federaalka Soomaaliyeed ee deegaankaas jooga ayaa halka yimid dawladana meeshay u aragto inay amnigeeda in wax laga sugo ay tahay waa ka sugaysaa problemna kama taagan marka taa iyada isla diriraysa gobol walba oo Soomaaliyeed oo nimanka dhibaato ay ku hayaan waxaan ugu baaqaynaa in maamulkiisa gaarka sameeyo dawladdiisa federaalka Soomaaliyeed ka qayb wasiir xildhibaano ka tirsanaa maanta oo imanayay oo laha caleemasaarkaas waa daansi iyaga waqooyi galbeed iyaga maxaad ka warqabtaa
waqooyi galbeed iyagu dadka jooga iyagaa go'aansaday inay dowladda Soomaaliyeed ay yiraahdaan ka mid ma noqonayno marka gobolkii raba inuu dowladda Soomaaliyeed ka mid noqdo oo maamul goboleedka loogu sameeyo ka mid noqdo wax problema kama taagna iyagana waa dul Soomaaliyeed waa dal Soomaaliyeed gobolkaasi annaga dawlad ahaan mas'uuliyada naga saaran in dadku ku noolna ay nabad ku noolaadaan ku halkaan joogan ay nabad ku noolaadaan marka wax gaar oo maaragta annaga dawladda federaalka Soomaaliya xuduudda Soomaaliyeed dhanay madax ka tahay de shakhsi siyaasi ah meel yimid oo wax yirin annaga hadda u jawaabi meeyay dabcan wafdiga igala socdaa kamid ah safiirada Turkiga iyo Saudi Arabia taas micnaheedu waxa weeye dawladdu dalalka gobolka way la kala kaleefaysatay Soomaaliya maya nin walba dawladaha dhan oo safiiradooda joogan dalka invitation loo soo diray dadka danooyinka la gaaray leeyihiin safaray ku kala maqan yihiin intii hadda imaan kartay yaa timid marka wax gaar ah oo maaragta ma jiraan dadka noo yimid waa uga mahad celinaynaa oo soo dhiiraday oo halkaan noogu yimid mahad gaar ah baan u jeedinaynaa inta ka maqan xumaan kale lama maqnay dawladaha islaamka dhan waa taageereen midnimada Soomaaliyeed dawladaha Afrika dhan waa taageereen maaragta European Union waa taageertay cid walba oo gobolka joogtana way taageertay marka dhib kama jiro arrinta midnimada Soomaaliyeed dhib kama taagan guud ahaan daawadayaal wararkeena waa naga intaa wax walba oo ku soo kordha xaaladda laasacaanood iyo sidoo kale wararka soo socda waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkeena iyo warbixinadeena soo socda haddii Allah uu dalo waraale ka noqdo haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe de bugan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno waad mahadsantihiin daawadayaal soo dhawaada